wax qarsoon ma aha in qaaradda Afrika ay ka soo jeedaan qaar ka mid ah dadka ugu hantida badan caalamka, kuwaas oo hantidooda ka helay isgaarsiinta, macdanta, shidaalka, warshadaha iyo qaar kale. South Africa, Masar iyo Nigeria ayaa ah wadamada ugu badan ay ka soo jeedaan 10 qof ee ugu hantida badan qaaradda Afrika. Muuqaalkeenna maanta waxaan uga hadli doonaa 10 qof ee ugu hantida badan qaaradda Afrika. 1. Aliko Dangote, hantidiisa 13.5 bilyan oo dollar. 65 jirkan Nigeria u dhashay waa qofka ugu hantida badan qaaradda Afrika. Aliko Dangote waa aasaasaha Dangote Group oo ku lug leh ganacsiyo badan sida shamiitada, sokorta, cusbada iyo qaar kale. Aliko Dangote ayaa aasaasay Dangote Group sanadkii 1981 waxayna xarumo ku leedahay wadamo badan oo qaaradda Afrika ku yaala, waxaana ka shaqeeya in ka badan 30,000 oo shaqaale. 2. Johan Robert, hantidiisa 10.7 bilyan oo dollar. 72 jirkan South Africa u dhashay waa aasaasaha shirkadda Richemont oo ku taala Switzerland, wuxuuna aasaasay sanadkii 1988. Shirkaddu waxay soo saartaa saacadaha, dharka, qalabka maqaarka ka samaysan, qalimaanta iyo qaar kale, waxaana ka shaqeeya 34,000 oo shaqaale. 3. Nicky Oppenheimer, hantidiisa 8.4 bilyan oo dollar. 76 jirkan wuxuu u dhashay South Africa, wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda macdanta ee De Beers, sidoo kale wuxuu soo noqday gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Anglo America oo ah shirkad xarunteedu tahay Ingiriiska oo soo saarta diamondka. 4. Cabdisamed Rabiu, hantidiisa 7.6 bilyan oo dollar. 61 jirkan Nigeria u dhashay waa aasaasaha Bua Group oo soo saarta shamiitada, sokorta, sidoo kale waxay ka shaqeysaa hantida maguurtada ah. Cabdisamed waa ninka ugu hantida badan dalka Nigeria. 5. Nassif Sawiris, hantidiisa 7.2 bilyan oo dollar. Nassif Sawiris waa maalgeliye, waana kan ugu hantida badan dalka Masar. Wuxuu ka soo jeedaa qoyska ugu hantida badan Masar. Hantidiisu waxay ka timaadaa dhanka dhismaha iyo maalgelinta. 6. Mike Adenuga, hantidiisa 5.6 bilyan oo dollar. Mike waa 68 jir u dhashay Nigeria. Ilaha uu dhaqaalaha ka helo waxaa ka mid ah isgaarsiinta iyo shidaalka. Markuu ahaa 26 jir ayuu noqday milyaneer, haddana waa ninka labaad ee ugu hantida badan Nigeria. 7. Yescad Rabrab, hantidiisa 4.6 bilyan oo dollar. Yescad waa 78 jir u dhashay waddanka Algeria, waana aasaasaha iyo madaxa shirkadda Sifital oo ka shaqeysa beeraha, hantida maguurtada ah iyo qaar kale, waxaana ka shaqeeya 18,000 oo shaqaale. 8. Najib Sawiris, hantidiisa 3.3 bilyan oo dollar. Najib wuxuu ka tirsan yahay qoyska Sawiris ee ugu hantida badan dalka Masar. Walaalkiis ayaa ku jira kaalinta 5 dadka ugu hantida badan qaaradda Afrika. Wuxuu horay u ahaa gudoomiyaha Orascom Telecom Holding oo isgaarsiinta ka shaqeysa iyo Orascom Investment Holding oo maalgelinta ka shaqeysa. 9. Beatrice Motsepe, hantidiisa 3.1 bilyan oo dollar. Beatrice waa 59 jir ka soo jeeda South Africa, waana aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda African Rainbow Minerals oo macdanta ka shaqeysa. Wuxuu noqday bilyaneer 2008, wuxuuna noqday madowgii ugu horeeyay oo liiska Forbes ka soo muuqda. 10. Maxamed Mansuur, hantidiisa 2.8 bilyan oo dollar. 75 jirkan Masar u dhashay waa ganacsade iyo siyaasi hore, waana gudoomiyaha Mansuur Group oo ah shirkadda labaad ee ugu dakhliga badan Masar. Mansuur Group waa shirkadda ugu badan caalamka ee iibisa badeecada shirkadda General Motors, waxaana ka shaqeeya 60,000 oo shaqaale.